hindiya saaxiibayaal haddaba halkaas markii aad Facebook uga tagnane aan imaana bal filimkan horta saaxiibayaal filimkan sheekadiisa maxaa laga yiri sheekadiisa filimkan waxay ku socotaa saaxiibayaal 1680 meeyadii ayaa la joogaa boqortooyadii Mughal iyo boqortooyadii Chhatrapati Shivaji Maharaj ayaa meeshan isku haysta saaxiibayaal sheekadu waxay ku bilaabanay boqortooyadan reer Marathi ay leeyihiin Chhatrapati Shivaji Maharaj oo geeriyoonay isla boqorkaas ayaa geeriyoonay ayuu filimka ku bilaabanaa markii uu geeriyoodana boqortooyada reer Mughal ee islaamka waxay doonayaan in ay bilaqaystaan boqortooyada Chhatrapati Shivaji Maharaj ee sanamyada caamudo iyo dhagaxyada iyo waxyaabahaas caamudaan inay gubaan ay ka baabi'iyaan ay ku qasbaan inay diinta islaamka ay soo galaan iyo waxyaabo noocaas ayuu filimka ku socdaa marka sheekadu waxa ay leedahay reer Mughal boqortooyadaas waxay iloobeen wiilka lagu magacaabay Shivaji oo dhalay Chhatrapati Shivaji Maharaj oo nin libaaxa oo aan nixin ayay iloobeen ayaa la leeyahay saaxiibayaal wiilkaas ayuu wuxuu ka hortagi doonaa boqortooyada facaweyn ee Mughal ee adduunka oo dhanba laga cabsado ayuu ka hortagi doonaa marka sheekada ma aha saaxiibayaal sheeko saxan boqortooyada Mughal markii si caadi aan kugu sheegay boqortooyada Mughal waa boqortooyo sax ah oo hindiya ka jiri jirtay hindiya dawlad islaam ayay ahayd sidaa darteed boqortooyadaasna wax hortooda istaagi jira ma isleen laakiin waxaan film ayaa laga sameeyay reer Marathi iyo Hindu iyo waxyaabaas ayaa dabada ka riixay ma aha marka sheeko sax ma ahane ee Hinduuga ayaa dhinac u janjeerinayo sidaa darteed marka sheekada sidaas marka ay taa filmka marka waxa la leeyahay waxa loo daawadaa boqortooyada reer Mughal oo hogaamiye oo ka yahay Akshay Khanna oo awood badan ayaa halkaas ka taliyo wuxuuna rabaa boqortooyada reer Marathi maadaama boqorkoodii Chhatrapati Shivaji Maharaj oo geeriyooday inuu cagta oo mariyo haddaba saaxiibayaal filmku waxa loo daawadaa marka boqortooyada Chhatrapati Shivaji Maharaj oo ka geeriyooday wiilkiisana uu xukumo ma ka badbaadsan doona boqortooyada Mughal oo boqortooyo awood badan oo rabaan sanamyada iyo waxyaabaha ayaga rabbiga ay ku tilmaamaan ay caabudaan inay ka qaataan ama ay ka burburiyaan ay rabaan marka filmku waxa loo daawadaa ninkan boqorka lagu magacaabo Shivaji oo Vicky Kaushal oo wiilka uu dhalay Chhatrapati Shivaji Maharaj boqortooyadiisa ma ka badbaadsan doona boqortooyada Mughal oo Akshay Khanna oo awood badan oo wato ayaa filmka loo daawanaa saaxiibayaal haddaba filmkan saaka wuxuu ku furmay 30% ayuu ku furmay doorkii 45 ayuu soo gaaray meelahaas filmkan saaxiibayaal haddii caawo ilaa ay galabtii uu gaari waayo 60% ilaa ay 70% uu gaari waayo filmkan waxa ku dhibaato wuxuu dhib u maraa ayaa la leeyahay 20 koror inuu maalintiisa koowaad oo soo xareeya saaxiibayaal laakiin haddii sar u kac oo sameeyo caawo 60% ilaa 70% uu gaaro hubaal waxa la leeyahay filmkan 25 koror ilaa 20 koror ayuu maalinta amaantay oo ku furmi doona ayaa la leeyahay qiyaastii ilaa istimeedka saaxiibayaal sidoo kale dadka filimada falanqeeya ayagana filmkan waa ay daawadeen sida Taran Adrash oo kale shabakadaha waaweyn sida film Indian Today iyo Express iyo waxaas oo dhan waa la soo daawada filmkan waxay ku qiimeeyeen dadka caanka ah ee waaweynka waxay ku qiimeeyeen 4 xidig ayay ku qiimeeyeen halkaas loo dhig qolyaha producer fiigarada waa halkaas dhig dadka filimada soo daawada marka oo si toos u soo daawada filmkan waxay ku qiimeeyeen 3 xidig iyo bar ilaa 3 xidig ayaa filmkan la siiyay saaxiibayaal 4 xidig uma qalma ayaa la leeyahay maxaa yeelay sheekada ayuu ka been sheegay ayaa la yiri director Lakshman Odekar iyo My Dog Films